السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن أصحابي ميل كستو جوجتان وهبين نمو 3 أو 4 سوق ليسو تاريخ دورة واللبية 20 كأبريل سنة 2025 برنامج هبين نمو وحندكو عيا قضباء ذو حساب بدن kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta oo nagta uga saaray ciidanka Israa'iil hoobiyayaal ay 4 jiho kaga duqeeyeen deegaanka la yiraahdo Xayu Tufaax dhanka bari ee magaalada Gaza. ciidanka Israa'iil oo markaa la sheegay in ay halka u direen diyaarado helicopters si ay u daabulaan dhaawacyada ka dhashay weerarkaas. haddaba xaaladda Gaza barnaamijkan idinku haya Trump iyo Netanyahu oo goordhow telefoonka ku wada hadlay arrimo xasaasiyana ka hadlay aqalka cad ee Mareykanka oo sheegay xilliga ay bilaabanayso iyo xilliga ay dhamaanayso booqashada Donald Trump bisha May ee soo socota uu ku tagi doono 3 wadan oo ku yaala dalalka Khaliijka. dhanka kale madaxweynaha Turkiga ayaa u yeeray ra'iisul wasaaraha Pakistan maadaama Pakistan ay tahay dowladda kaliya ee Islaam ah ay haysata hubka nuclear-ka inay ka arinsadaan sidii laga yeeli lahaa dhibaatada iyo mushkiladda haysata reer Gaza iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen in gargaar si qasaba lagu geeyo Gaza. haddaba xaaladaasu siday wax uga bedeli doontaa xiisadaha ka jira gobolka. barnaamijka ayaan iyana ku faahfaahin doonaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa idinkugu haynaa inta aan ku jirno wixii wararaya soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa galabta waxaa la sheegay in hoobiyayaal raaxada looga qaaday ciidamo ishabeynayay oo Israa'iiliyiin ah deegaanka la yiraahdo Xayu Tufaax oo ku yaala bariga Gaza. jabhadda la yiraahdo Saraaya al-Qudus ayaa waxay sheegtay inay hoobiyaha dhumucdiisu tahay 60 ay ku garaacday fariisin ay joogeen ciidanka Israa'iiliyiinta iyagoo waliba hoobiyaha ka ridayay meel ku dhow halka ay joogaan, taasoo markaa la sheegay in khasaaro xoog leh ay ciidanka Israa'iil soo gaarsiisay. ilaa maqribkii caawa diyaaradaha waxay halka ugu dagayeen si la sheegay in ay ka qaadayeen dhaawacyada askartii wax ku noqotay hoobiyayaashii lagu garaacay halkaas. xaaladda Gaza way ka sii daraysaa marba marka ka dambaysa. kooxaha muqaawamaduna mar walba taagtiig cusub oo ay wax ku yeeli karaan ciidanka Israa'iil ayay la soo baxayaan. waxaa telefoonka ku wada hadlay goordhaweyto madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. haddaba dhowr arrimood oo muhiim ah ayay ka hadleen sida warbaahintu ay sheegayso, laakiin arrinta ugu muhiimsan ee Trump uu soo wacay ninka Netanyahu waxay ahayd inuu balyiraa war isdeji. warqadaha ay soo dirayso Israa'iil aqalka cad waa buuxsamaa lagu leeyahay arrinta Iiraan annaga haddaanan ka galaynin maaragtay dhinac ka fariisanaynin Mareykanka oo aan wax ka ogaanaynin waxaan u malaynaynaa inaad tanaasul badan samaynaysaan kan qayladooda baxaysa maalmaan oo maxaa idinka galay Mareykan iyo Iiraan maya annagu inaan ogaanaan rabnaa say u lahaayeen. marka hadda dhinkan Trump waxa leeyahay marka ugu horeysay wuxuu kala hadlay arrinta Iiraan wuxuu yiri isdeji waxbaha walwalin wax walba wanaagi ku dhamaan doonaan wax idinku dhibaato idinku ah annagu ma soo qaadayne adinku jooga meeshiin. ninkii marka xoogaa waxaaba ku dhacay walwal aan caadi ahayn. armay Iiraaniyiintu nimankan maaragtay wax badan ka dhamaystaan qayladooda baxays. marka Trump wuxuu leeyahay isdeji sheekadu maaragtay xoogaa maaragtay saad u malaynaysa ma wax dhibaato ah oo arrinka idinka soo gaaray bajiraan. dhanka kalena waxa leeyahay waxay ka wada hadleen dhowr arrimood oo muhiim ah. xaaladda Israa'iil gudaheeda xataa ka taagan iyo ishaysadkan iyo wareerkan taagan waa laga hadlay. waxa soo kale ay ka wada hadleen inkastoo tafaasiil badan aysan ka soo bixin arrinta maxaabiista Gaza lagu haysto sidii loo soo dayn lahaa dagaalka Gaza. dhowr arrimood ayay ka wada hadleen ayaa la leeyahay inkastoo tafaasiil badan aan laga hadlin. waxa kaliya xoogga la saari ay ahayd arrinta Iiraan oo Netanyahu oo kooxdiisu ay aad uga walwalsanaayeen. haddaba dhanka kale Iiraaniyiintu waxay leeyihiin kulankii Brito Arbaca qolooyinka guddida farsamada ay kulmi lahaayeen in markaa dib loo dhigay inkastoo tafaasiil badan aan la sheegin. laakiin kii Sabtida soo socda oo Cumaan ka dhacaya oo maaragtay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan iyo ninka ergeyga Trump way ballansan yihiin
wax isbedela lagama sheegin oo halkaa ayay hawshu ka socon doontaa. dhanka kale aqalka cad ee waddanka Mareykanka ayaa wuxuu sheegay goor dhaweyto war ku saabsan safarka Donald Trump uu ku tagi doono gobolka bariga dhexe gaar ahaan khaliijka. haddaba waxaa la sheegay 13 bisha May ilaa 16 bisha May madaxweyne Donald Trump inuu booqan doono Saudi Arabia, Qatar iyo Imaaraadka, isagoo kala xaajoon doona arrimo gaar u ah dalalkaas iyo Mareykanka iyo arrinta guud ee gobolka iyo xaaladda Iran, Gaza iyo arrimo kale inay ka wada hadli doonaan. maxadada ugu horeysa safarkiisa waxa uu ku tagi doonaa Saudi Arabia. waatii markii xukunka uu yimid uu yiri Saudi Arabia hadday bixiso intaasoo bilyan oo dollar waxaan tagi doonaa safarkaygii ugu horeeyay ee aan Mareykanka ka baxo. isla Sacuudiga lacagtii ayuu meel saaray, isagoo hadda safarkiisii ugu horeeyay ayuu ku tagayaa Saudi Arabia. haddaba hawshaas halkaas ay baraysaa. qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa sheeko cajiiba oo ku saabsan Turkiga iyo Pakistan oo wada xaajood aad muhiim u ah ku leh waddanka Turkiga. ra'iisul wasaaraha Pakistan oo lagu casuumay Turkiga arrinta Gaza waxa ay ka yeelayaan iyo xayiraadda Israa'iil ay ku hayso dadka muslimiinta ee dhibaataysan, maadaama Pakistan ay tahay dalka kaliya ee islaam ah haysta hubka nukliyeerka. baca soo galayso. haddaba qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa casuumaad rasmiya ayaa loo fidiyay ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan ninka la yiraahdo Shahbaz Sharif. waxa uu fidiyay Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga. ajandayaal muhiim ah ayay ka wada hadlayaan sida warbaahinta Turkigu ay qorayso, waxaana ugu weyn cilaaqada labada dowladood iyo arrinta Gaza. Erdogan wuxuu doonayaa in dowladaha waaweyn ee islaamku ay markaa sameeyaan cadaadis weyn oo ay saarayaan Israa'iil oo ku saabsan sidii gargaarka loo gelin lahaa Gaza. arrintan waxay ka dambaysaa la leeyahay kadib markii dhawaan wafdi ka socda Hamas ay la kulmeen wasiirka arrimaha dibadda Hakan Fidan ee Turkiga iyo waliba ninka sirdoonka u qaabilsan Turkiga Ibrahim Qalan. waxay u sheegeen inaan Turkiga ma ahan cid kale aanay heli karin oo arrinta xoog saari karta. dadkii gaajo u dhimanayaan, dabo la'aan ay jirtaa, dhibaato ay jirtaa, marka wax kasta in Turkiga ku qaadato oo arrinka la hirgeliyo oo dadka gargaar la gaarsiiyo. Mareykanku ay kala hadlaan, cid kasta kala hadlaan. marka waxa leeyahay madaxdii ay la kulmeen Hamas waxay u gudbiyeen Rajab Tayyip Erdogan durbaba wuxuu bilaabay olole ballaaran oo dowladaha waaweyn ee islaamku ay markaa ka arinsanayaan sidii ay u geyn lahaayeen raashin iyo dawo dadka ula gaari lahaayeen. marka hawshan waxay ka socotaa leeyahay caawa waddanka Turkiga oo shirka xasaasiga ah waxa leh Pakistan ra'iisul wasaaraheeda iyo waxa iyo Rajab Tayyip Erdogan iyo wafuudda. arrinka ayaa laga arinsanayaa dowladaha kale ee loo kaashan doono sida ay xaalku noqon doono. Erdogan wuxuu isku dayi doonaa markan in bal xaaladda badbaado loo helo dadka reer Gaza oo runtii arrintu ay aad ugu xun tahay. Hamasna ay u sheegatay Turkiga in wixii karaankiisa ah oo awoodiisa uu arrinka wax ka qabto. haddaba waa arki doonaa wixii warar ee ka soo baxa. barnaamijyada dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa. barnaamijkaygii caawana intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa. fadlan barnaamijka like garay oo share garay, fakari aragti waxa haysana noogu reeb qaybta commenteska iyo fariimaha. haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka ka iloobin YouTube-ka, Facebook-kana follow garay. inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan, nabadgelyo.